saddex sac subaxnimo reer muqdisho waa idin jeclahay waxaan ahay ruuxii idin madadaalin jiray waxaan ahay ruuxii filmaanta quruxda badan qaarka entertainmentiga qaarka madadaalada jeceelka wax walbo idin soo gudbin jiray baraankiyada aad jecleedeen marka haddana waxaan rabaa meeshii taageeraha ugu badan aan ku lahaa inaan السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا فيديو كلا عصب ورنتي عندنا هذا نيسو مرينو ان طبعا حاليا فيديو انا ليابتين ادان دغدغ كجيري waxba ku jir laakiin nuqata asxaabta waxaan rabaa inaan runtii anoo joogo anoo xamar joogin inaan ka qayb galo soo dhaweynta qurux ku dhigle dabcan qurux ku dhigle waa legend kamid ah legendada Soomaaliyeed dadka uga caansan ee farkutiriska ah aan dhaho dhowrkii sano ugu dambeysay social media hadda noqon lahayd TikTok hadda noqon lahayd Snapchat hadda noqon lahayd YouTube oday intuu saan qabtay macnaha gadgadiyay alaabihii kubadda cagta lagu aqaanay Messi iyo Ronaldo ay social media gadgadiyay ugu dambeyn waa markii ugu horeysay uu ka safri doono dalka Kenya muddo kadib طبعا basically wuxuu ka soo jeedaa qurux ku dhiile dalka Soomaaliya gobolka yarta ahaato waa shakhsi Soomaaliyeed ku soo ambaxay dalka Kenya haddana safar u ah ماشي معناها كل شيء ارجعوا الى اصلها هذا ما جبتين تنو كلا واي معناها هذه ميرو البقات ان بري كونفرسيشن waxa loo qaadan jiray east and west home is the best معناها qurux dhiile maamada ayadeedu ka dhaweeyay ugu dambeyn wuxuu dhahay nimiyo waa waqti waxa la gaaray aan boqon lahaa caasima ee magaalada Muqdisho wax badan ee dadka isweydiiyeen qurux dhiile wuxuu ka mid dadka farkotiriska ah caanka ah aan safrin aan dhaqdhaqaaqin meel aadin sabax u jiray camal ugu dambeyn waa ka dhaweeyay markii safarkiisa muku sii fogaanay magaalada Muqdisho diyaar u ah soo dhaweyntiisa runtii waxaan u maleeyaa in loo dhigi doono soo dhaweyn aad wanaagsan sida hadda aan maqlay waan arki doonaa social media kala socon doonaa laakiin waxaan rabaa inaan saxo waxyaabo oo farkutiris oo macnaha aad u moodid inay qaladaad yihiin ninka odayga laga galay markuu ku dhawaaqay in safarkiisa uu ku aadi doono dalkii hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho macnaha qaladaadka laga galay waxa kamid ah koow dhowr qalad laga galay dhowr qalad laga galay waa dul istaagi doonaa laakiin wax qaladaadka ugu weyn oo laga galay qurux ku dhiile waxa waayo in la dhahay muxuu ka doonaa magaalada Muqdisho deegaan ahaan kama soo jeedo way isku qoraa maxalli shiray dadkan koonfurta ka imaad camal marka saas u fiir dadka saa dhahayo waa macnaha duriyada way markaas u fiir dadka ka imaaday originally back at home kolba faanta ayada waxaan leeyahay qalad waayo ninka odayga waa nin Soomaaliyeed dabcan wuxuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta muu inta kale ku jirta in isku samro oo la isdhaxmaro nin walba meesha uu rabo ama noqon lahayd taageerayash inuu sadufana ahaan lahaa hadduu qof caan ahaan lahaa sida qurux xiri camal in taageerayash waqti uu la soo qaato familigiis u soo booqdo family waa badan yahay waxa jira ayeeyo abti awow ilmo adeer ta ayada waxaan leeyahay dadka ahay oo ku degdegeen kalaabta qaladka kale oo aan arkay safar qurux ku dhiile oo dad badan ay ku dambaaween waxa kamid ah in asagii mariish qorta soo geliyo oo dhahay arooskooda wuxuu ka dhici karaa magaalada Muqdisho asagoo afkiis laga qabanay macnaha inuu aroos rabo dabcan laga yaabo inuu xamar aroos u aadayo laga yaabo inuu mariish doonayo inuu xamar ku soo arooso laakiin intuu soo fadhiistay ay wuxuu noo sheegay inay mariish tahay gabar walaashiis ah qaali ku ah walaalnimo hadday imaatana qof uu ku doorsado dunida aysan jirin intaas inaan ku ekaano ayaa fiican boqolkiiba boqol ayaduna gabadha dabcan wareysi fara badan ay bixisay oo YouTube ku jiro hadda noqon lahayd YouTube keeda hadda noqon lahayd YouTube fara badan ee ku saabsan xiriirkooda kala dhaxeeya ayadii qurux ku dhiile tii ayada inta soo fadhiistay ayay runtii in badan ku soo celisay war amaan isiya ninkan walaalkay gabadhu guursan doona birina waa walaashay I mean waa dimashaday waayo which means walaalkeed ayaa qaba gabadhan sidaas halkay u dhigayso tii ayada waxaan dhihi lahaa nimiyo hadalka dadka markay wax sheegaan waxa fiican in la qaato la aamino
aan lagu sii tarx tagin inta badan ruux ku dhiile waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow dalkaaga hooyo runtii waxaan filaa in safarku uu noqon doono safarada aad geli jirta inta badan safarkaagii ugu wanaagsanaa ugu qaalisanaa waayo waxaa arkaysaa dalkaaga hooyo in badan amoogeed dabcan wuxuu kasoo tagay asagoo dhalinyaro ah haddana wuxuu laabanayaa weli dhalinyaro oo ah laakiin asagoo odayga gerile oo runtii sawiradiisa shalay maanta waa aragnay asagoo saasuu laabanaya asagoo wuxuu kasoo tagay hal magac leh haddana wuxuu laabanaya asagoo intaasoo magac leh waayo berigsa tagay waxaa laga yaabaa in la dhihi jiray hal magac u watay hooyasa bis u bixiyay haddana noqon leh axmed ama cabdi ama faarax maantana wuxuu laabanaya asagoo jaak qurux ku dhigle iyo inta magac loo bixi lagu wanqala asoo wato dabcan markuu tagay xamar wuxuu ahaa qof aan la garanayn caan ahayn maantana wuxuu laabanaya asagoo caan ah marka adduunka saa iska ah caanlamadan asoo ka sheekeyna ninka odayga waa maqlay oo dhahaa inuu rafaada kasoo mar dhibaan kasoo maray waa usoo jabhadeeyey waa la soo ciilay laakiin maanta wuxuu taagan yahay waxaan ahay libaax leerta jiifo intaasna kaftan waa asxaabta videoga waxaa uga talagalay inaan ka qayb qaato soo dhaweynta qurux ku dhigle oo aan leeyahay dee magaalada xamar adeeg ku sugaysa qurux ku dhigle saas waa title soo aragteen hala soo dhaweey odayga ha loo kaco soo dhaweyntiisa waxaan rajeynaya in noqon doonto soo dhaweyn runtii aan loo kala harin magaalada muqdishona dee waa lagu aqaanay soo dhaweyn dad badan ay soo dhaweysay muqdisho waayo waa caasimadii ummadda soomaaliyeed dad badan caan ah weligood arkin hadday noqon lahayn fanaaniin hadday noqon lahayn wariyaal hadday noqon lahayn youtubers haddaan dhaho hadda magacoodan qaada macnaha waxaan u malay inta fadhin doona dhowr maalmood laakiin dee muqdisho caan ay ku tahay soo dhaweynta dadka muqdisho joogan runtii inta badan hadday noqon lahayn dadka caanka ah ama dadka kaleeto oo riyadka caariska ah soo dhaweynta inta badan waa lagu aqaanay muqdisho nafteeda ma aqaani goora aadi doon laakiin waa insha allah adiga waa imaanaysaa waqtigeeda hadduu ilaahay may dhihin hadduu ilaahay may insha allah mar qof walba wuu tegi doonaa meeshaas ilaahay nabad nooga dhigo qurux ku dhiilna waxaan leeyahay dee dadkii caanka ah lasoo dhaweyni jiray unbaa kamid tahay kama dugnid runtii walaalaha lasoo dhaweynaya unbaa kamid tahay waana lagu soo dhaweynaya hadallada qaldan ay kusoo gaaray dhigkaa u dhigin xamar cid kaama xigto waa magaaladaadii waa dalkaagii waa caasimadaadii odayga waxaan leeyahay kusoo dhawow jawi degan gal magaalada caaga dhigo soo dhaweyntan waxaan rajeyn inay noqon doonto soo dhaweyntii ugu qaalisaneed ee magaalada muqdisho runtii qof bin aadana lagu soo dhaweeyay asxaabta video intaasaan kusoo gabagabeynaa janalkana dee noo kala kiciya hadday tahay markuu hore janalka aad soo booqatana fadlan subscribe to ina muhiim